something that is related like qof wal hore maahan ina dhinac soo marto ama wax ku sameeyay gees taas waa laga fiican yahay ko adig wax kugu meehan labo adiga bisma wax daawanay hadee u baad 5 qof 7 qof 10 qof aadiin idinkana wax nigu meehan shalay maanta nigu meehan birin nigu ma noqon doono idinkii waxaad tiin wax yar oo isla jir laakiin anagu waa niga badanay inta daawanaysa aniga wax ku yahay kula waxna wanaagsan asxaabta qaaliga sida joogtada waxaan kanaalkan xog bixinta wararka halkani waa kanaalka xog bixinta wararka fadlan haday tahay booqashadaad kood ee soo booqata kanaalka xog bixinta wararka subscribe saar gabadha kana ku dhufo si ay ku soo gaaraan muuqaalada xiisaha leh aan halkan soo gelino maalin walba hadii Ilaahay idmo in ku soo biir oo kamid noqo asxaabta team xog bixinta wararka waxaan halkan kaga hadli doonaa Queen Hafsa oo kamid ah xaaskii hore ee Rashka Boy wuu ogsoonahay Rashka Boy iyo Hafsa in isqabeen oo ahaayeen lamaane si weyn YouTube-ka looga yaqaanay haddaba bilihii ugu dambeeyay Queen Hafsa iyo Rashka Boy way kala tageen oo isfureen oo calafkoodii ayaa dhamaaday haddaba Queen Hafsa seen ognahay waxay furatay YouTube kaas oo score aan Soomaalida kii ugu horeeyay ay gaadhay muddo bil iyo 2 cisho ah ay ku gaadhay 7,200 oo subscriber haddaba Queen Hafsa oo ka hadashay in YouTube-keedii gabi ahaanba hawada laga saaray haddaba waa naxdin weyn in wixii aad u soo dhididay aad u soo rafaaday in gabi ahaanba qof yar uu hawada ka saaro haddaba Queen Hafsa ayaa sheegtay oo cadaysay qofka ka dambeeyay in YouTube channel-keeda ay intaas oo dhan horumarka ka gaartay hawada laga saaro Queen Hafsa oo ah gabadh Soomaaliyeed oo isla waqti xaadirkan ku sugan wadanka Kenya caasimadda Nairobi haddaba Queen Hafsa ayaa kaga hadashay muuqaal ay kaga hadlaysay barteeda YouTube ku sheegtay in gabi ahaanba YouTube-keedii ay soo celisay oo ay ka weyday mobilkeeda Gmail-kii YouTube-keeda kadib markii ay garaacday wiil la shaqayn jiray oo ay fiidiyoada isla soo duubi jireen kadibna ay u sheegtay in ay Gmail-keedii ka weydayba mobilkeeda gacanta wiilkii ay la shaqayn jirtay ayaa u sheegay in YouTube-kii hawada uu ka baxay haddaba wiilkan la shaqeeya Queen Hafsa ayaa sheegay in ay soo celinayaan oo ay dad kale la adeegsan doonaan haddaba guud ahaan YouTube-kii way ku guuleysteen inay soo celiyaan kadib markii ay 5 fiidyo oo kaliya ay dirqiye Allah ay ku soo celiyeen haddaba daawadayaal halkani waa kanaalka xog bixinta wararka ka mid noqo oo ku soo biir team xog bixinta wararka si aad uga heshid muuqaalada ugu dambeeya iyo wararka caalamka